asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamay asxaabta halkan ku xidhan meel kastoo aad joogtaan. salaanka bacdi aniga qudheedu dhacdadan markaan diyaarinayay hoosheedaan ku jiray ayaa waxaa dhacday fikiro badan ayaa igu soo dhacday inaanay waxaanba dhacdo xaqiiqi ahayn, balse markii baadhitaan aan sameeyey, baadhitaan dheer aan galay, aan ogaaday inay dhacdadanu cajiib tahayba. saaxiibayaal soo dhawaada. marka dhacdadeenan waxay ka dhacday wadanka Masar, waxaana ku dhacday wiil 22 jira. wiilkan wuxuu ka soo jeeday qoys iska meel dhaxaada, waxbarashadiisana wuxuu ku jiray dugsigii sare ayuu ku jiray, waxbarashadiisana normal bay ahayd, meel dhaxaad ayay ahayd. haddaba wiilka mushkiladiisa waxa ay bilaabmatay markii uu isku dayay inuu soo xaadiriyo ruuxaanta, xaadirintii ruuxaanta uu sooba xaadiriyeyba. haddaba wuxuu noqday wiilkii 2 qof oo hal jir ku nool. waxaa kaloo la noolaa soo xaadirinta ruuxaanta gabadh Naciima la dhaho, ruuxaanteeda ayuu soo xaadirin jiray sidii soo sheegay weeye. gabadhaasna wuu jeclaa. gabadha ruuxaanteedii soo xaadirinteedii iyo isla gabadhaas waxay la wareegtayba qaab fikirkiisii siduu u fikirayay ayay la wareegtayba. heer busna u gaadhay uu ka warqabo xaaladaha soo socdaba wixii dhici lahaa beriyo oo kale. wuxuuna awood u yeeshay asxaabtiisa dadkii ka dhowaa inuu adarooso waxa ku soo socda, waxay fooda ku hayaan, waxay qaban doonaan, waxa uu sii ogaado. intaa waxaa usii dheera xidhiirka isaga iyo gabadhan ruuxaaniga ka dhexeeya aad buu sii xigdaystay, aad buuna gabadha u jeclaa. sidii lamaana caadiya ayay isku noqdeen oo halkaasuu xidhiirkoodii kasii xigdaystay. muddo kadib wuxuu dareemayba inuu awooddiisii fikiraanin hoos u dhacday, balse wuxuu yidhi waxaas weydiin mudan maxay tahayba dheeftaan ka helayo fikirka, maadaama aan sii adaroosayoba aan sii ogahay waxyaalaha dhacaya. haddii aan tallaabo meel u qaadayo waan sii adaroosa, haddii aan cunto cunayo waan sii adaroosa, waana sii ogahay ayuu dareem. ilaahay waa qof ay la shaqaynayaan ruuxaaniya. haddaba muddo kabacdii ruuxaantii dagaalaysatay, natiijadii ka dhalatay waxa ay noqotay inay uu ka dareemo culays jir ahaaneed. keliyaata gabadhii ruuxaaniyeed ee jeclaatay kumay koobnaan, balse qolooyin kale ruuxaaniyeena sidii soo sheega weye ayaa ugu soo hoos dhuntay. cadaadis ayuu halkaa u kala kulmay, heer uu gaadhay marmarka qaarkoodba inuu ku fikiro inuu qudha iska jiro uu nafta isdhaafiyaba. in badan ayuu kaalmo iyo caafimaad u weydiistay dadkii ka dhowaa, saaxiibadii uga waramay arrintiisa, balse cidu kama hoos qaadino. saaxiibadii markuu arrinta uga sheekeeyeyba, arrinkii markuu saaxiibadii uga sheekeeyey waxaan u maleeyeenba waalan siduu xaalku ugu dhacay, iyadoo waxbay way ka hoos qaadi waayeena, waxayna maleeyeen wayna ku qosleen oo ku maadaysteen. aniga qudheedu dhacdadan markaan diyaarinayay hoosheedaan ku jiray ayaa waxaa dhacday fikiro badan ayaa igu soo dhacday inaanay waxaanba dhacdo xaqiiqi ahayn, balse markii baadhitaan aan sameeyey, baadhitaan dheer aan galay, aan ogaaday inay dhacdadanu cajiib tahayba. sida wiilkan usoo gudbinaya ay ugu dhacday markaa arkay dad badan ka hadlaya ayaan ogaaday inay dhacdadanu xaqiiqo tahay. haddaba wiilkii xaaladiisa markay ku adkaagtay ee saaxiibadii ka hoos qaadi waayeen oo qaarkood ay ku qosqosleen, waxaa dhacday inuu culays uu ka dareemo jir ahaaneed iyo ruuxaanidii u soo xaadirinayay. intaas ruuxaantiiyo xanuunka ku guda jiray. imtixaankii dugsiga ayuu dhacay, markaasuna uu ku siibtay waxbarashadiisii imtixaanka. ugu dambeyntii wiilkii cidhiirigii iyo dhibaatadii u adkaysan waayey, aakhirkii wuxuu aaday dhakhtar lagu daweeyo ruuxaaniga, dadka ruuxaaniga istusaan iyo waxaas. adugu qolooyin ruuxaaniga ayuu aaday siduu dabiib caafimaad
ula soo helo. xaaladiisii way ladnaatay wayna fiicnaatay, balse si dhammaystiran uma buuxsan. kolkuu ku sii socdo ururka ruuxaaniga, marmarka qaarkood jaranjarada markuu sii raacayo fooqa ururka ruuxaaniga waxaa qabsan jiray cidhiidhi jidhahaaneed ayaa qabsan jiray, sidii qof la soo jiidayo oo loo diidana yahay inuu jaranjarada uu koro, halka sare uu koro. cidhiidhi buuna dareemi jiray, uu ka dareemi jiray qolooyinkii ruuxaaniga oo gabadha ka jeclaaday. ugu dambeyntii wuxuu yidhi faraha ayaan ka qaaday ururkii ruuxaaniga ee aan dabiibka ka heli jiray. noloshaydii caadigeed ayaan iskaga soo noqday. wiilkii ayuu ku soo laabtay, balse bil kadib ayay soo laabatay dirdirintii iyo ruuxaanigii ka dhexeeyey isaga dhibaatooyinka qallafsan. wiilkan dhibtiisa waxa ay ka taagan tahay oo ruuxaaniga ay ku haysaa dhibaato jidheed, inuu jidhkii culays uu ka dareemo, inaanan adugu culays saa'ida u dareemo, aanu yaro socon karin, culays uu ka dareemo. isagoo xaaladda ku sugan wiilku wuxuu yidhi ma haysto cid aan xaaladda kula eerto dhibaatada ila garab istaagta. waxaanaan ka cabsi qabay haddaan qoyskayada aan u sheedo ina ay ii malaynayaan qof waalan oo u baahan bixlaa cilaashkiio lagu dabiibo dadka. sidii saaxiibadii unbuu aduug aaminay in haddii qoyskooda u bandhigo inuu aanu ka helin kaalmo caafimaad iyo garabstaad ee ay ku maadaysanayaan. wiilka fakar ayuu galay, garamaayo ayuu yidhi waxaan sameeyey. waxaan ka cabsi qaba inay taxaanka dugsiga aan ku dhaco sidii sanadkii lasoo dhaafay aan ugu dhacay. waxaan kaliya imika aan cabsi qabaa buu yidhi inuu noloshayga aan u waayo ruuxaanigan. aan isku dayay inaan soo xaadiriyo, balse natiijada ka dhalatay haddaan sidaan moodayay buu yidhi mayaan soo xaadirin lahaynba. qisadan ama dhacdadeennan yare kooban intaa yaro xogaa baan ka helnay, balse wiilkii talooyin badan markuu dad caana la soo wadaaday qisadan dhacdadan siday ugu dhacday, dhakhaatiir aqoon-yahano uu la soo wadaaday talooyin badan buu kula kulmay. dad ay ku tilmaama sidii saaxiibadii inay sheeka beleley tahay oo wax uu istusayuu yahay ayay qaar ku tilmaameenba, balse aakhirkii talmoon ayaa la siiyey, wuxuuna talo ka helay dad badan oo aqoon-yahana. laakiin inagu intaa yar baan kaga koobsannaa qisadan, xodtaa yar baana ka helnay. qisadanna oo dalka masar iyo ayay ka dhacday, walow aanan magaalada ka dhacday aana xog aan ka helin, haddana dalka masar ayuu sheegay inuu joogo wiilku uu joogo. haddaba inagu maxay ka faa'iidi karnaa dhacdadan ku dhacday wiilkan? kow, waxaan ka faa'iidi karnaa adkaar ay ku baxno markay guryaha ay ka baxno, siday nebi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markasta adkaarka akhrista markay guryaha ka baxasaan. waxaa jira bulshadeenna dad wax sirax oo sixirka ka shaqaysta, dadka xoolahooda intay sirxaan xoolahooda qaata, qaar jiman iyo waxa ku jiraan. waxaasoo dhan waxay kala badbaadi kartaa uun ilaahay kaga xijaabiyaa inaad adkaarka akhrisatid, sida marka gurigaaga ka baxaysid aad tiraadid bismillaahi watawakalka cala allah walaa xawla walaa quwata billah, ilaahay baan kala saartay marka gurigaaga ka baxsid. sidoo kale markaad aad weysweysanaysid hadiga jeeraado bulshadeenna Soomaaliyeed waxaa ku dhacda shaydaan baa hebla ka dhaxadlay, waxaasin dheena balsin ruuxaanta iyo hebel baa ruuxaan arkiyo heblaha ruuxaan istusayna. qolooyinkan reer galbeedka iyo barigan dhexe ay carabta ayay waxaasu ka dhacaan, balse inaga Soomaali ahaan waxayna haysta in hablaha Soomaaliyeed oo shaydaan iyo waxaan la garanayn qolooyin ay ka dhaxadlaan, ee qaaru jacayl waan jeclaadnay, ee qaaru dhahaan wayna dhibaateysay. waxaasunbay hableena ka dhaxadla, balse ruuxaantaasu inaga Soomaali ahaan inama haysato, balse dadkaas ayaa haliyo jeeraada la kulma waxaasu ay istusaan. waxaasuna dadkaas reer galbeedka waxa u horseeda diin la'aan baa horseeda iyo cibaado la'aan ayaa u horseeda, iyo itixaan lagu tusaya adduunka weyse ka wada itixaan. haddaba dhacdadeennan intaasay ku ekeed. sidaan soo sheegayba waxaynu ku socnaa wadadii kun sabskaraib aan ku gaadhi lahayn. markaa haddaad jalanka kosubta sabskaraib saar, haddaad awoodid inaad saaxiibadaas sii gaadhsiisidna oo sii sheergaraysidna sii sheergaray baan ku leeyahay. haddaad dii hore noola joogta leed baa muuqaalka saaraysaa siduu dad badan u gaadho. leedta muuqaalka marka luu leeyahay leedta saar waxay ka saacidaysaa inuu dad badan u gaadho muuqaalku.
dad badan ka faa'iidaystaan. inta muuqaalka xiga aan isugu imaano waxaan iga tegayaa ammaano Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.